arrinta ugu muhiimsan ee ah in maanta halkan u fadhino oo ah kaar qaybinta oo inoo doonto haddii la ka dhigo bisha 11 bisha 11 haddii la ka dhigo waxaan rajaynaynaa gobolku kaararkiisa dadka inay gaarsiiyaan inay si wacan u qaataan kaararka si qof waliba xaqiisii uu helo hadhowto uu codayn karo in la baraarujiyo dadka oo lagu dhiirigeliyo arrintaasi si wanaagsan bay doorasho diiwaangelintii hore nagu soo dhacday dadku si wanaagsan bay isku diiwaangeliyeen iyadoo aanay ahayn markii ugu horeysay diiwaangelin waddanka ka qabsoonto oo 2016 dad badan isdiiwaangeliyeen haddana dadkii beriga aan isdiiwaangelin intii qaangaadhay intii waddanka maqnayd timi intii beriga intay ku celcelisay uu ka gubtay kaararku intaasoo dhan baa isdiiwaangelisay diiwaangelintan dambe inaan sidoo kale tilmaamo in maanta ujeeddada xafladeenana koobaad ay ahayd in aynu ku dhawaaqno bilowga kaar qaybinta in la siiyo kaararka codaynta dadkii isdiiwaangeliyey diiwaangelintii hadda dhammaatay iyo sidoo kale in kaararka la siiyo dadkii berigii hore 2016 isdiiwaangeliyey balse aan fursad u helin inay kaararkoodii qaataan ee kaararkoodii ku hadheen commissionka ayaa iyagana hadda markan fursad loo siinaya inay kaararkoodii helaan labada group baynu markan u adeegaynaa aan u shaqaynaynaa 3 gobol baa Soomaaliland oo dhan lagu bilaabay kaar qaybinta waa Sool iyo Sanaag iyo Saaxil oo maanta si siman ay uga bilaabmayso ama xafladan uga qabsoomayso khamiista iyo jimcaha iyo sabtida oo ah 11 iyo 12 iyo 13 bisha March sanadka 2021 ayay ka socon doontaa goob walba oo la iska diiwaangeliyey kaar qaybinta qof walba oo isdiiwaangeliyey 2000 iyo ama diiwaangelintan dambe ee dhacday 2020 waxa uu ka qaadan karaa kaarkiisii meeshii iska diiwaangeliyey goobtii iska diiwaangeliyey ayuu tegayaa si uu kaarkiisa u soo qaato sidoo kale qofkii berigaa hore 2016 isdiiwaangeliyey balse kaarkiisa aan qaadan isla goobtii uu berigaa iska diiwaangeliyey buu isaguna tegayaa halkaasuu kaarkiisa u yaala ayuu ka qaadan doonaa bulshoy kaarka qaato kaarka codbixinta qaata bulshoy kaarka qaato kaarka codbixinta qaata maanta 3 gobol ayaa laga bilaabayaa oo sidoo kale xaflad uga socota xafladda kaar qaybinta gobolka Saaxil gobolka Sanaag iyo gobolka Sool waxaan ugu baaqayaa bulshooyinka 3 gobol degan ee kaararkoodu bilaabmayo inay kaararka qaataan
musharaxiinta ay wataan waxay ku soo saari karaan kaarkaa maanta la qaybinayo oo ay dhammaantood sidii markii hore ay u qaateen kaar beddel maantana ay u qaataan waxaan ugu baaqaynaa inay wada qaataan si ay musharaxiintooda ugu hiiliyaan annaguna haddii aanu xusbiga kulmiye nahay waanu soo dhowaynaynaa dadkana waxaanu leenahay kaadharhka qaata sidii ay isu diiwaan geliseen ama u bedelateen ee hore musharaxiintana waxaanu leenahay sidii aa u wadeena habsamida lahayd u shaqeeya oo wax saddex xisbiba ay ka siman yihiin oo meel uga soo wada jeedaan ilaa hadda komishanka qarankuna shaqada sidii aanu wada bilownay ilaa maanta dardar culus ayay ku wadaan si nadiifana way wadaan hagar la-aanna way wadaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa inta hadhee kalena sidaa aanu u ammaanayna inay hawsha ugu dhammeeyo ugu socoto waana rajaynayaa rajo weyn baan ka qabaa waxaan halkan dardaana ka bixinayaa gobolkan saaxiil wuxuu kaga duwaya gobollada kale isagu somaliland baa dadka looga soo gura waa magaalo xeebaho hargeysa dadka aad looga soo guray burca aad looga soo guray doorkan awal sheekhoon laga soo gurin baa laga soo guray waad ogtihiin xadka u dhexeeya gobolka ilaa laga soo gaadho ee dhinaca burco dad badan baa laga diiwaangeliyey hargeysa dhinaceedana in badan baa laga diiwaangeliyey dadkaasi aad bay u fara badan yihiin dadkaa wixii soo guraya danaynayana waxay musharaxiinta gobolka heer gobol iyo heer degmaba ee ka sharaxan halkan waxaan leeyahay sidii aad dadkii u soo gurteen waa inaydaan ku ceeboobin dadkii aad soo gurteen dee waa inaad dib u soo gurtaan ood keentaan bulshoy kaarka qaato kaarka codbixinta qaata bulshoy kaarka qaato kaarka codbixinta qaata mahadda ilaahay ka suga waxaan u mahadnaqaynaa komishanka doorashooyinka qaranka somalilan oo runtii shaqo muuqata oo miisaan iyo culays la qabtay ee qarankana sharaf ka mudan waxaan rajaynaynaa dadkii isdiiwaangeliyey si ay u gutaan xaqooda waajibaad qarana inay kaadhka sidooda u qaataan ka maamul dowlad hoos ahaan annagu hore komishanka qarankana waa la shaqaynay iminkana inta nagaga beegan hadduu ilaah raxmaan kardo waa la shaqaynayna waxaynu ka soo gudubnay registrationkii waxaynu ka soo gudubnay bedelashadii kaadharka maanta waxaynu maraynaa oo aynu halkan ka daafuraynaa kaar qaadashada codbixiyayaasha ugu horeyn fariintaan u dirayaa waxa weye dadka gobolka jooga dhammaan inay kaadharka wixii ka habsaamay ama kaarhkoodii aan haysan inay qaataan fariintaas ayaan marka hore u dirayaa marka labaad annaga gobol ahaan waa naga diyaar wada shaqayntii commissionku sidii aanu horeba idinla soo shaqaynay ayaanu iminkaba diyaar u nahay waa naga diyaar oo waanu u diyaar garownay taliyaashii ciidamada ee heer gobol ama guddiga nabadgelyadu way noo fadhiyaan wixii ciidanee raaci lahaa commissionka ee la bilaabi lahaa shaqadana waa noo diyaar inaanu nabadgelyada xoojinno oonu adkayno oonu sii labalaabno ayaa naga diyaara oo taladeedu tahay oonu ku wada soconnaa